kulan habboon dhammaantiinba ku soo dhawaada Somali Freedom kani waa muuqaal cusub halka kan waxaan idinku soo gudbin doonaa 7 dabeecadood oo dhammaan lagu yaqaano haweenka faraxsan qof walba waa uu danaynayaa la kulanka iyo wax ku darsiga haween faraxsan oo ka caagan caro iyo cuqdad haddaba tani waa sheeko xiiso badan ku soo dhawaada markasta oo da'daada ay sii weynaato waxaa kuu fududaanaysa inaad fahamto waxa aad samaynayso iyo waxa aad ka fogaanayso si aysan niyadda kaaga dhaawicin ama aysan waxyeello kuu gaarsiin haddii aadan weli heerkaas gaarin hawalwelin warbixinta tan waxay la hadlaysaa qof walba iyo da' kasta uu yahay qodobka ugu horeeya ee koobaad ma dhahan haa iyagoo ula jeeda maya dabeecaddan xun waxay dishaa farxadda haddii aadan doonayn in wax lagu weydiisto aad samayso haddaba marka hore haba aqbalinba haddii aadan doonaynin guurkiisa marka hore ha ku oranin haye farxad ayaad ku noolaan doontaa haddii waxa aadan doonaynin aad diido balse haddii ay tahay amar shaqo oo uu ku siiyey qofka madaxda ku ah ma diidi kartid dabcan qodobka labaad waxay deeqsi ku yihiin bogaadinta iyo ammaanta haddii bogaadin aadan filayn ay mar un ku soo gaarto gaar ahaan haddii ay tahay haweenay aadan garanaynin waa inaad ogaataa waa maalintaada farxadda ha ka xishoonin haddii aad ka hesho labiska qof shaqadiisa ama dabeecadaha guud ha ka baqin sidoo kale ha noqonin qof ka badbadiya sida inuu raadinayo jawaab qodobka saddexaad ciil iyo xanaaq ma dareemaan markay dareemaanna way iska saaraan xanaaqa iyo ciilka waxay dhaawac u geystaan qofka dareemayo waxna kama tarto qofka loo xanaaqsan yahay haddii dareen xun iyo ciil aad u qabto qof kale waxay dabeecadahaas kaa dhigayaa qof xun oo keli ah ha ahaato in aad ciilkaaga muujiso ama aad qarsato ma kala duwana waxaa muhiim ah inaad iska saarto oo aad ka socoto waxa kuu keenay xanaaqa qodobka afaraad naxariistooda looma kala soocna qof kasta way u naxariistaan shaah ama cunto yar uga tag miiska qofka aad isla shaqaysaan iyadoo qofna uusan ku arkaynin fariin mahadnaqa uga tag qof aadan ka helin ama qof ku wanaagsan arrimahaas waxay muujiyaan naxariis aan loo kala soocnayn waxayna leeyihiin micno weyn waqti yar ayayna kaa qaadanaysaa inaad samayso isbeddel weyn ayayna kuu keenayaan adiga shakhsi ahaanna waxaad noqonaysaa qof faraxsan qodobka shanaad ma dhahan waxaan doonaynaa in aan sidaa noqdo balse wayba yihiin waxay ku hamiyaan ha oranin waxaan doonayaa inaan qoraan noqdo ama waxaas iyo waxaas haddaba iska noqo waxaad ku haminayso cidi kaama xigto go'aankaaga weeye waxa ku hortaagan wakhtiga ha isaga luminin xilliyo isbuuca ah oo marba aad qorshe cusub diyaariso ha ahaato xirfad shaqo jaamacad ama wax kale marka aad ku hamiso wax horay ka bilow inta aadan ka niyad jabin qodobka lixaad qof kastoo abaal u gala way garanayaan wayna u gudaan arrintan waa midda ugu wanaagsan ee noloshaada wax ka beddeli karta maalinta ay kugu xun tahay oo aadan haysanin wax oo aad ka abaal guddo waxaad warqad ku qortaa arrimaha iska caadiga ah waxaad eegi kartaa kuwa alle ku siiyey sida biyaha hoyga iyo wax kasta oo kale arrintaa waxay hagaajinaysaa niyaddaada waxaana kaa baxaya walwalka ama murugada iyo farxad la'aanta aad dareemayso qodobka ugu dambeeya ee 7aad arrin kasta waxay ka hormariyaan daryeelka naftooda dumarka farxadda badan way garanayaan waxa ugu muhiimsan noloshooda in caafimaadka uu yahay maskax jir iyo dareen intaba taa ayay waqti ku bixiyaan waxayna u yeelaan waqti iyo dhaqaale u gaar ah way raadiyaan daryeelka adeegyada kale iyo wixii kale ee naftooda ku saabsan haddii caruur ay kuu joogaan waa muhiim inaadan ilaawin daryeelka naftaada qofna ma daryeeli kartid haddii aad naftaada daryeelin Soomaali waxay ku mahmaahdaa tiisa daryeela mid kale ku dara waad ku mahadsantihiin daawashadeenna la wadaaga saaxiibada kale